nabarada qarsoon ee leeyahay marada kama qaadi karaan inay xabadina ku dhacdaan ka door bidi doona la wada arkaya aad baad mahadsantiin halkaasi waa kalidayda kab qarabay naga garaacin ciidamada qaranku refertooyinkaygina waa kuwan way ku cadyihiin gebigayga waxaa nolola dhaqmay si ka baxsan adduunyada dhaqankeedii maxaabiista saa loogula dhaqmo waxaana loo bahdilay si aan caadi ahayn nabarada wejigayga ka muuqda ee inta badan xali dadku baraha bulshada wareejinayeen waxaa nooga dhib iyo xanuun badan nabarada jidhkayga ku yaala ee aan weli cidina odhan halkay la joogtaan iyo maxaad qabtaan toona بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad ugu mahad celinayaa bahda warbaahinta iyo xisaabta qaranka qaraan xisbiga wadani oo imika hoygaanu ka deganahay magaalada Hargeysa aan soo qooqday waxaan leenahay waxaan ugu dhacay dadku yarkayaan mashaakilka u weyna ismalihiin baa ciidankii dilaayay janku xigeenkii ciidanka ahaa kusimaha janka ciidanka mas'uulka ka sii ahaa ee aan u dacwoonay isagii baan imika anagu dhibana ka nahay dhulkaana la jiiday waxba kamaanaan qarin waa kuwa gacmahayaga diirku saa uga tegay ee aad arkaysaan waan la hadalay dhabankayaga wakaa aad arkaysaan dadku xalay kaa madow unbay inta badan fokus ka saarayeen laakiin dhabankayga waxaa saa u galay waa gacan askari weeye marka la leeyahay maxaan ku dhahdaayey qaranka iyo muwaadiniinta qaranku wuxuu macna kuu samaynayaa marka dhexdiisa caafimaad iyo nabadgelyo ku haysato laakiin anigu aabba melihi hooyaday agoonnimo igu soo korisay way xanuunsanaysaa muddooyinkii ugu dambeeyeyna way gubtay hortayda inta dhagaha la qabtay iyo timaha feeljir lagu garaacay madaxeeda waxaa ka sareeya waa barar halkii habeenkii aan dhakhtarka galnay ilaa imikada way ma tagaysaa waxa ugu badan aan saldhigga uga soo baxayna waa inaan hooyadii horta anigu dhakhtarna helo oo aanan hadhowtadii naftayda ku eersanin adaa jeelka kusii dhexayay maadaamana loo diiday xataa xabad kaniin inay bannaanka nooga soo gasho hadal badan hama laga buuxshay inta badan wataan warkayga shalay iyo dhibta nagu dhacday iyo tacadiga nagu dhacayba midyaha la wadaagay in aanu maaragtay saldhiggii sidii ahaa wax uga qabsano waan anaga laftaydu dee qaab weji ka weji ugu waajahay iyo duqaan baan ugu dhex cunay meesha jirkayga wakaa gebigayga waxaa nolola dhaqmay si ka baxsan adduunyada dhaqankeedii maxaabiista saa loogula dhaqmo waxaana loo bahdilay si aan caadi ahayn nabarada wejigayga ka muuqda ee inta badan xali dadku baraha bulshada wareejinayeen waxaa nooga dhib iyo xanuun badan nabarada jidhkayga ku yaala ee aan weli cidina odhan halkay la joogtaan iyo maxaad qabtaan toona halkaasi waa kalidayda kab qarabay naga garaacin ciidamada qaranku refertooyinkaygina waa kuwan way ku cadyihiin nabar kasta oo aanu qabno taas waa refertada hooye tanna waa aniga taydii hooye shalay waxaa la geeyey markii warbaahintu gurigay igu timid isbitaalka alxayaat waxaa la soo xaqiijiyey hooyadii madaxeeda qaybta dambe inuu dhiig fadhiyo geeridu waa xaq laakiin maanta hooyadii teedii hadday noqoto tayda waxay igaga daran marka waalidkaa meesha maraya qofkaana guli ma jiro maanta hooyadii teedii hadday noqoto ciidamada qaranka gacantooday ku maqan tahay qarankuna anigu qaran iima aha qaranna uma aaminayo qaranna uma arkayo inta hooyadiina sidaa
dhex gardaaminayo annagana sidaana loogu dhex geliyo warday warbaahinta qaarkood uga yaaceen hagardaamooyinkii dhibaatooyinkii ciidamada ku hayeen hadday warbaahinta qaarkood uga yaaceen oo aanay cid u hadasho kalena jirin oo aan cid wax ka odhanaysaana jirin hadday warbaahinta qaarkood uga guureen oo magaalooyinkay ku dhasheen iyo magaalooyinkay ku barbaaran iyo magaalooyinka wax ku dhex barteen iyo halkay ka dhex shaqaysanayeen ay uga tageen dad shaarka dawladda u gashanaya anigu kaliya taliyayaasha laga sheekeeyo maanta ka hor lamaan kulmi xukuumadii kala duubeeyay ama caalamul islaam ay iska bedelaan ama Soomaaliya markay Soomaaliya ahayd ay iska bedelaan ama maanta halkan joogtay ay iska bedelaan dib aan anigu ka arkay oo aan maanta taa ahayn ma garanayo dibta u ballaaran shaarka Soomaaliland ba maanta aniga leegu gaarsiiyay hooyadii baa leegu hordilay oo si cadowtinimo loo raganimo la inta timaha loo qabtay aan arkaya firjib loogu garaacay ciidanka qaranku isaga isu furo isu xidha oo jiifiyaano banaan joojiyana banaan isu tahay shalay toolo waan hadlay maantana waa kan waan hadlayaa haddii aan arrinkayaga cid ay qusaysiyo laamaha cadaaladdu si dhaqso ah aan uga soo jawaabin inamada yaryar in la laayay inamada yadaan u diri doona geedna xidid la'aan ma baxo haddii kale guryahoodaan tagi doona inanka yar hooyadii nabarka gaarsiiyay gurigii hooyadii baan tagi doona dabeetana hadhow haddii ciidanka qaranku isaga hooyadii difaaci doono halkii hooyadii xaq la'aanta ku mudatay iyaga ka jawaabi doona anagu dib nagu filan baanu qabnaa maanta inta iguna waxaanu dacwad u nahay oo aan u ashkatoonaynaa oo aan cid ka filaynaa in ilaamihii cadaaladda ku shaqada lahaa noo yimaadaan anagu taliska qaranka ma tegi doono halkan aan ka sheegaya telefoonada igu soo dhacaya taliska qaranka kaalaya uma tegi doono taliska qaranka dhexdiisa waxba la iguma yeelin taliska qaranku laantii uu sareysay ee boolisku waana u dacwooday jawaabtan kala kulmayna waan idin la wadaago waxaan kala kulmay in mobilkayga muhiimada la siiyo oo aan hooyadayda ma tagaysana la eegin gogolaantan ku jifnan la eegin waxaan cunayana la eegin dhulkiina la jiidayo ka farahayga ka yihiin dhabankayga waxa ku dhacayna aan la eegin jirkayga qaybaha qarsoon ay rifeertadayda ku cad yihiin marka taliska qaranka anagu inuu isagu noo yimaado oo waxaan qabnay aanu dhibanaha u naynala eega ma ogiye intaanu tagno ma oran doono waxaan aanu qabnaa boolis dambana uma dacwoon doono laamaha cadaaladdu haddaanay sida ugu dhaqsaha badan uga soo jawaabin waxaana gaadhayna saldhigga laftiisaan anagu tagaynaa xabada caadi ahna lagu dhifto nabarada qarsoon ee leysleeyay laga garan ee leysleeyay waa hablo marada kama qaadi karaan nabarada qarsoon ee leysleeyay marada kama qaadi karaan inay xabadana ku dhacdaan ka doorbidi doona la wada arkaya aad bad mahadsantiin